horta ikaad horta walaalo dhageyso horta waxa markaan doodayna ma cilmiyan ku doodayna ama soo iska murmayna anagu cilmiyan ku hadlayna maamul goboleedyada dastuurku soo dhigi mahayo inay iyagu doorashada dhexdooda ka sameystaan meesha ay wasaaradda arrimaha gudaha ama dawladda federaalka ay kaalin ugu leedahay ha ka soo saareen nadiir horta u baahan horta nadiir inuu ka soo saaraan horta u baahan ikaad horta inuu ka soo saaraan u baahan dooda toobigaada aad ma fiiri aniga ma ana dhig horta suuqa ma ilaalin ma dhihin ma laakiin waxaan rabaa inuu sax adiga toosi ha soo qaadan lahayd suuqa ma ka qaado inaad soo qaadatay ahayd dood dagaal oo soo waa dhaweyd muran dheer iyo isjijiid tira badan doorashadii ka dhacday Jubbaland oo aniga aan goobjooga ka ahaa oo aan isleeyahay shanta maamul goboleed doorashooyinka ka dhacday midii ugu wanaagsaneed ayaa ka dhacday Jubbaland ani aragayga sidaan aaminsan ama dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin shanta maamul goboleed aan lahayn doldoleelo ma aysan jirin sida lagu soo doortayna qof kasta xogaal ay u tahay maamul goboleedkii aan isleeyahay waa ugu wanaagsanaa doorashadiisa oo dawladda federaalka runtii madaxtooyada Soomaaliya ay khilaaf tira badan iyo isjijiid uu ka dhaxeeyay waa dhawad warqad ay soo saareen oo ay leeyihiin markii hadda waqtigiina uu dhamaaday cadaadis tira badanna uu yimid 2 sano oo ku meel gaar ah ayaan aqoonsanaynaa madaxtooyada soo saartay warqadaas waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay raaligelin in laga bixiyo sababtoo ah dawladda maamul goboleedka Jubbaland dastuurkana u fasaxay horta waxooda inay sameystaan dastuurkana waa kii dawladda federaalka maamul goboleedka wuxuu leeyahay dastuur oo xilliga mataqaana mudaxileedka madaxweynaha iyo hay'adaha kale ama sharci dejinta ama laamaha fulinta intoodaba awood u siinayo waana 4 sano mandatekiisa marka hadii la leeyahay ma ogta ana 2 sano kugu daray ama 2 sano ka dhimay hadiiba saas ay iskaga fududahay hadda dalkaanu sharci isku la socdaaye fikir qof uu leeyahay dalku kuma wada socdo inta waxa ku dheer labada warqadood mid ka soo baxday filla Soomaaliya ka soo baxday wax qodob oo dastuuri hoy cuskutay ma jiro fikir qof uu leeyahay meesha lagu soo qoray Jubbaland warqad ay kaga soo jawaabtay waxay soo daliishanayaan dastuurkan oo federaalka awood u siina inay waxooda iga sameystaan dastuurkooda ay daliishanayaan labada warqadood warqadda Jubbaland cadaaladna u dhow warqad dawlad ay soo qortayna taas u dhow waayahay laakiin ma moodaa in muxuu ahaa dawladda Soomaaliya iyada ayaa mandate-ka 4 sano iska leh hadday u aragto maamul goboleed in hab aan cadaaladda ku dhisnayn in loo doortay hadday arkaan wasaaradda arrimaha guduhu iyo dawladdu waxay xaq u leeyahay inay tiraahdo arrinkan kuma qanacsanin sidaa daraaddeed waa in dib loogu laabtaa xaq bay u leedahay marka warqaddaani soo kama tarjumayso habkii loo soo doortay Axmed Madoobe oo aan nidaamka waafaqsanayn oo ay leedahay war heedha 2 sano anagu si ku meel gaara ku siinay kuguna aqoonsanay hadda isku sax oo wax soo diyaari soo muuqato ma saddex halkaas aan ka sax nidaamka aan waafaqsanayn oo lagu soo doortay Axmed Madoobe nidaamka lagu soo doortay procedure iyo sharci iyo rabitaanka shacabka reer Jubbaland oo Axmed meesha ku yimid oo qof kastana waa ogtahay midaan rabaa inaan ku sheego maamuladan hadda jira ee maamul goboleedyada dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu meesha yimid Hirshabeelle maahane inta kale doorasho ka dhacday maamul kastaba sida lagu soo doortayna waa ognahay waxaan ognahay maamul goboleedyo murashaxiintii u taagna ay maanta xabsi ku jiraan laakiin Jubbaland murashaxiintii taagna iyo ninkii xilku ku guuleystay maanta gacmaha isaystaan hal nin oo banaanka taagan ma jiro marka hadii ay bahasha tahay la jiifiyana banaan waxaan anigu aan rabana sharci ma waxaad adigu rabtana sharci waa sharci darro hadii ay bahashu tahay hadda bahashan xoog lagu wada joogo horta kaas lagu wada joogaa runtii dalkaana meel foga laga keenay isjijiid dheer badan uu soo maray ikaade walaalow isjijiid dheer badan uu soo maray waxaan rabnaa warqadii ay soo qortay villa Soomaaliya warqad wax isu keenaysa ma ahana warqad wax duminaysa rabitaan shakhsiyadeedna dalkan lagu hogaamin u aragtaa sidaas horta aad u mahadsantahay kan hore ee doorashada ayaan rabaa inaan wax yar ku sii darsado wadankani doorashada aan anagu shuruucda aan sharciga aan saxinay waa qof iyo cod waay in la aado waa
annagu sharci baan naga gudbay sharcigaasi wixii ku shaqayn lahaana waa guddiga madax bannaan waa guddiga madax bannaan horta ha ka timaado anigu waxaan xilligii loogu talagalay qof iyo cod in la qabto doorasho ah ma qaban karo ayadoo ha ka timaado laakiin annagu inaan sii hor orodno oo aan maaragtay maxaan ku yidhahdaa sii hor orodno waa nasiib darro weyn waaye xildhibaan ansixiyey sharcigaasi inuu maanta horta sii hor ordo midda kale arrintan oo hadda ninka saaxiibka uu soo qaaday xildhibaanka uu soo qaaday Jubbaland anaga labada iyadaba Jubbaland baan ka nimid horta waxa ilaahay mahadiya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadalkii ugu horreeyay aan ku bilaabay maadaama uu arrin u socday aad u macno fiican u samaynaysa dadka Soomaaliyeed asagoo oo warqadaas soo saaray inuu wadanka ka tago oo Djibouti uu tago horta waxay tahay mid farxad anaga gelinaysa waayo nidaamkaasi shalayto qaabku ku yimid wax la wada og yahay waa saaxiibku wuxuu leeyahay dastuurkaana lagu dhaqmo in lagu dhaqmaa oo dastuurka uu leeyahay dastuurka in lagu dhaqmo hadduu asagu maamulka Jubbaland ay ogol yihiin dawladduna waxay ogoshahay in dastuur lagu dhaqmo dastuurka lagu dhaqmo inta jawaabtiisa ahayna inta adigu aad sheegtay waayo waxaan rabaa axmed intuu meesha joogay isbedelada ka dhacay maamul goboleedyada inta ka dhacday fiiri south west isbedel baa ka dhacay dawladda dhexe isbedel baa ka dhacay galmudug isbedel baa ka dhacay puntland isbedel baa ka dhacay hirshabeelle isbedel baa ka dhacay fiiriya asagoo markaa axmed hadduu hataa uu noqonayo tiir oo geed ka dhex baxay Jubbaland uu ahaanayo oo dadkii Jubbaland wax ku wada lahaa wax saamileydii ahayd haddii hataa u gartaan inuu 20 sano uu u joogo oo uu kasbado anigu ma diidayo laakiin meeshaas waxay ahayd in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo isbedel uu ka dhaco aniga axmed intaan u tagaa waxaan niri axmedow haddii shacabkan ay lagu doorto garabkaadaan nahay laakiin waa inay wax xalaal dhacdaa waa inay xalaal dhacdaa waa inay saaxiib kaadi adiga waa ku sugayaa sugdee dide muran lama rabo moogta waa hadlaysay waa iidaa hadalka aniga iidaa waxaan rabaa markaa baarlamaanka wixii sidii lagu soo xulay waa waxaan ognahay waaye aniga asaga igama sheekeynayo Jubbaland sida axmed uu doorashadiisa ay ku dhacdayna waa waxaan wada ognahay waaye ma rabo aniga hadda inaan sii dhaxgalo hadda arrintaas inaan sii dhaxgalo ma rabo maadaama ay dawladdii dhexe go'aan gaadhay axmed hadda maanta tala u taala musabixi muxuu qaatay in Soomaaliya la heshiiyo shacabka Somaliland iyo Soomaaliya in la heshiisiyo guddigii loo saaray waxa la yiri waxa in laga rabaa heshiis inuu idinka soo dhaxbaxo Soomaali fiiri muuse halkay u taagnaa meel dhow buu taagnaa axmed waxa laga rabaa maanta dadkii saamileyda ahaa dadka anigu waayadan dambe waxaan ugu batay wax la yiraahdo saamiley baan ugu badatay saamileydii Jubbaland shacabkii Jubbaland odayaashii kala irdhoobay dadkii siyaasadda ku kala irdhoobay inuu jaanis baa la siiyay jaaniska la siiyay inuu ka faa'iideysto dadkiina uu isku keeno si maamul loo wada dhan yahayna loo sameeyo horta waxaan la soconaa meeshan wadankan Soomaaliya wadan beesha caalamka ama Mareykanka ama UN-ka ama EU-du ay qayb weyn ku leeyihiin hataa siyaasadooda waa sida muuqatayna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo qoraalka madaxtooyada ka soo baxay waxaan nagu maqaalo ah in uu macnaha Mareykanka iyo macnaha beesha caalamka inay aad ugu lug leedahay cadaadis badan iyo pressure badan oo ka yimid iyo cadaadis kale oo ka yimid waliba aqalkii sare oo dhinacaana ka yimid iyo maamul goboleedka ka yimid inuu arintan keenay ayaa la sheegaya ma ahana aysan ahayn wax sahal ku yimid marka hadiiba ay dhacdayba in madaxweynaha Soomaaliya warqada uu soo saaro agaasimaha warfaafinta si la sheegay sidaan aragnay ay ku saxiixan yihiin ya ma kaga habooneed in la yiraahdo okay waaye waxaan soo celinaa wada shaqayntii maamul goboleedka Jubbaland mandate-kooda 4 sano soo kaba fiicneen aan ku saxo
soomaaliya waa jamhuuriyadda soomaaliya la yidhaahdaa yani beesha caalamka iyo maraykanka iyo UN-ka iyo waxaasoo dhan markii laysku soo koobo wadamada dariska ee igad iyo waxoo dhan markii la yidhaahdo soomaaliya meesha ay rabto ayaa la rabaa inay ku garab siiyaan baroti dhegeyse mid lagu cadaaso wax barashar la yidhaahdo oo Jubbaland kaga yimid hadday ayagu ay Jubbaland inay hal sano ku dhawaad bay hadda sidaan u kala taagnaayeen dawladda u kala taagnaayeen tala way iman kartaa inay la yiraahdo war waxa ka fiicnaan lahayd talada sidan ka fiicnaan waa dhici kartaa laakiin exactly waxa ku sheegay laakiin waxa way waa malaynaysaa iyadoo Axmed Madoobe ka maqan yahay in maamul goboleed iyo dawladdu soo imaan kareen fiiri hadii horta fiiri waan ku sheegaa maamul goboleedka aniga nadiira ka turjumaya maamul goboleedka fiiri aniga maxaan ka turjumaya siyaasadii dawladda dhexe ee federaalka waxaan uga turjumayaa maamulka Jubbaland fiiri asaga local Axmed waxa loo doortay waxa lagu doortay baarlamaankii localka ayaa doortay waxay u doorteen maxaan ku madaxweynihii Jubbaland ay u doorteen anna maxaa la ii doortay federaalkii fiiri anna waxa la isku baarlamaan baana wada doortay fiiri sugade fiiri aniga waxaan ahay marka hadday khalad jiro oo Jubbaland khaladka jiro qofkii ifin lahaa baan ahay okay waxaan rabaa su'aashaada inaan ku soo dhameystiro Jubbaland fursad baa la siiyay anagu aan isleenahay waa taageersanahay fursadaasna waa soo dhaweynaynaa inaan fursadaasi kala shaqeyno oo kula shaqeyno oo wax la saxo oo wixii khaldamay la saxo anaga taasaan rabnaa inay dhacdo taasana cid ku qasabtay dawladda federaalka ku qasabtay oo tiri ilaa watan sameena ma jirto taas waxaan isleenahay dadka suuqleyda iyo qolada Facebookyada waxay ku hadaaqaan xasaabada in odaya tahay ku hadaaqin adigu laftirkaada barasha waayahay arinta Axmed Madoobe iyo warqadan hadda dhaliilayso soo baxday ma u malaynaysaa in cadaadis internationalka ka yimid oo sabab u ahaa xildhibaan haye horta xasacad waa mahadsan tahay waxaad u malaysaa nadiir meeshuu ka aadi lahaa waxaan meesha u nimid inaan ka hadalno aniga kaliya u weeraray inuusan ani u weerarin inuu ka hadla waxa meesha aan u nimid inuu ka hadlo ayaan u baahnay labadeena waa run Jubbaland aan ka soo jeedna hadda wuxuu sheegay Axmed Madoobe waxa doortuu yiri xildhibaanada Jubbaland asagana xildhibaanada Jubbaland soo doortay waa sax asaga marka waxaan aaminsanahay asagana haddaan weerarayaa haddii uu ku matalayo aqalka sare Jubbaland roolkii uu lahay waa gabay Jubbaland 3 gobol ay ka kooban tahay 2 gobol oo kamid ah maamulka Jubbaland gacanta ku hay amnigiisa hal gobol ka maqnaa Jubbada hoose iyo geda waxa maamulayay maamul goboleedka Jubbaland Jubbada dhexe maqneed dawladda federaalku hadda uu leeyahay wax wanaagsan ay qabatay saana yeeshay horta Jubbada dhexe kuma is duuleen waxay ku duuleen geday ku duuleen oo maamul uu ka jira amni ah 1 kilomitir baawur lagu safri karo cid istaaf aan qaadanayna maanta aan ognahay xaaladiisa sida ay tahay oo wax oo shaki ku jira ma haddii ay ka shaqeynayaan wanaag ama argagixisada goobaha ay haysta laga xureynayo bu'aala iyo Jubbada dhexe qaban lahaayeen taas darteed waxay u shaqeynayaan dib ay u shaqeeyaan hore uma socdaan waxa ku soo haray warqadan horta waxaan soo xasuustay markii ay madaxtooyada ka soo baxday waxaan soo xasuustay doorashadii ka horeysay oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam lagu doortay oo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ahaa khilaaf badan dhacay isjiiji tira badan dhacay dawladda xilligaas waxay yiraahdeen meesha Jubbaland laantaan idin ka reebayna Jubbaland idin bixinayna madaxweynaha meesha aadna waxay yiraahdeen hogaamiyaha idin bixinayna ifahmaysa dekada soo wareejiye wax tira badan jiray runtii Jubbaland dulqaad iyo tanaasul ay meesha ku timid marka warqadan hadda soo baxday horta ereygaas ay soo xasuusisay warqad macno weyn sameeynaysan ma aha Jubbaland mandate-keeda waa 4 sano waa la doortay ani horeyna waa u sheegay haddana waa ku celinayaa maamul goboleedyada ama isteediyada dalkan ka jira annaga ma sameeynin nidaamkan federaalka oo heshiiska horta horta walaalo dhageyso horta waxa markaan doodayna ma cilmiyan ku doodayna ama soo iska murmayna anagu cilmiyan ku hadlayna dawladda federaalka dhismaha maamul goboleedyada hal rool ay ku leedahay ma jiro waa aqoonsanada hata waa sharci darro aqoonsi uma baahnaba sababtoo ah Jubbaland ayada iska hortay ikaada nadiir gacmaha soo taagtaagan ikaada ma fahmaysaa qodobka dastuurkan waa 143 qodob ka kooban ha ka soo saar hadda waa kane meesha ay wasaaradda arrimaha gudaha ama dawladda federaalka ay kaalin ugu leedahay
ha ka soo saara nadiir horta u baahan horta nadiir inuu ka soo saara horta u baahan ikaad horta inuu ka soo saara u baahan midna waa kuu sheegaya aniga doorashooyinkii isteediyada dalkan ka dhacay intay dhacayeen goobjoogan ka ah midii ugu fiicnayd oo ugu wanaagsanayd oo reer Jubbaland ay ku mideysnaayeen inta nadiir iyo fallaaga lamid intaan ka ahayn ay isku raacsanaayeen meeshaas ka dhacday soo qaadan lahayd ma ka inaad soo qaadatay dagaal oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ilaaliyaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya waa ilaaliyaha wax kasta oo shacabka ah oo dulmiha oo ku dhacaya ama maaragtay maxaan ku yiraahdaa ninka ilaalin lahaa waay marka dastuurkan uu sheegayo ilaaliyihiisa waa Farmaajo horta taas aamino wuxuu meel ay uga qorantay fiiri ma ilaalinayo maan ku yiri aniga fiiri aniga horta kuma dhigo ma ilaalinayo mogta adiga fiiri dooda toobigaada aad ma fiiri aniga ma ana dhigo horta dastuurka ma ilaalinayo ma dhihin ma laakiin waxaan rabaa inuu sax adiga toosi dastuur ha waa ilaaliyaha dastuurka qaranka haye kaasaa jawaab waa haye waxa ka rabaa ma suuute kaasaa jawaab waa haye ani hadda waxaan saaxiibkay u sheegaa warani waxa ii sheegayda waxaan saaxiibkay leeyahay hadda meesha ay joogto aniga isagu hadduu shalayto wixii dhacay uu la dhacsanaa aniguna aan fikirhaan aniguna aan la dhacsanayn hadda intuu iska daayo unsigan uu shidayo intuu iska daayo hadda aan wixii wax la wada qanacsan yahay wax lagu wada qanacsan yahay aan wada wajahno wixii naga khaldanaa aniguna aan u arkay inay khaldan tahay asaguna u arkay inay saxan tahay aan hadda wada wajahno anagoo ku faa'iideysanayna jaaniska qaldan yihiin samaysay maamulka Jubbaland wax ka qaldan yihiin asagu horta ma aaminsan yahay waa su'aasha waa taas ka jawaabi doona laakiin waxaan rabaa maamul goboleedyada dastuurku soo dhigi mahayo inay iyagu doorashada dhexdooda ka samaystaan oo madax bannaan yihiin horta ma dhigaya dastuur okay haddii uu dhigayo kaba soo qaadi karo Puntland doorashada kama dhac ma dawladda ku lug lahayd say ugu lug lahayd ali hadda tiraahdo halkaan guriga ayaa laga soo gelin hadda tiraahdo ciidadu raalli ka ahayn baa ka soo gelaysa maya ya maya sharcigaani fiiri 120 qodobkaani 120 wuxuu tilmaamayaa dhismaha laamaha sharciyada iyo fulinta ee maamulada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya waa arrimo ay ugu madax bannaan yihiin shuruucdooda yani dhismahooda waa waxay ugu madax bannaan yihiin shuruucdooda ugu madax bannaan fiiriya hoolka dawladda doorashadooda madax bannaan laakiin hoolka dawladda federaalka wasaaradda arrimaha dibadda federaalka iyo ilaalintii dastuurka inay hadday wax khaldamaan ninka saxaya yaa waay hadday horta meeshii wax ka khaldamaan oo laftirkeeda meeshii maamul goboleedkii ninka saxayay iyo haddaan annagu aan maaragtay isku qabanno yaana saxaya ii sheegay maamul goboleedka haddaan dhexdiisa annaga isku qabanno maamul goboleedka waxaa saxaya dowladda federaalka dowladda federaalka waxay u aragtay meeshaas waxaa ka dhacay inaysan ahayn nidaamkii dadku raalliga ka wada ahaayeen ma ahayn bay tiri ما أهم بيتي أنا مركب واحد ربع أنا وياك صاحبك أنا واحد مر لبعض أقول علينا والشغل فكر كذا أمس تنادي كسرت ما أنت مداني سانس بين الأسيء إن أكون شيلو دمشقين لو سمايو أحمد ومارتي وهرمود وياهي إن دمشقين لسمايو هذا سانس ماركا ويدي جانس ماركا ورقدنا كسر بعد العتيدة جانس ماركا أنا قلت تاسان هني أسقى أما هو أركب يسوع أركي جانس بيجي جانس كيف يدي سنة هسنا ونصعد في هسنا هرتي يعني كنت أقول لبدي سنة أنه سنة يعني ساملي دي يدك ديجان كاس كسر شعب مثلا دك الصومالية ماشي دكانو لما وصلت يعني مركل جبلان اللي هذا ما أقولنا يا حلقف أو جبلان إن علاديو لقون علاديو فكر كيس لقون علاديو